arrintan ummadda Soomaaliyeed lagu wareeriyay loo sheegay in balaayo waddanka ku socoto dhibaato ku socoto waxaan rabaa inaan tilmaamo ummadda Soomaaliyeed u sheego wax dhibaato oo baarlamaanka ka dhex taagan waddanka saameyn ku leh haday tahay amnigiisa iyo dhaqaalihiisa iyo horsocodkiisa meeshan ma jirto waxaan horyaal waxa weeye in aan guddoon aan dhaliilnay aan dooranno guddoon noo bedelo waxa keliya meesha yaal waa intaas ilaahay ha naga badbaadiyo in maalinta baarlamaanku furmay arrintaa la hordhigo waa maalinta la sheegi doono ee la soo bandhigi doono sababta 198 la yiri soo ma 198 xildhibaan sida walaalkay oo sheegay Cabdullaahi Ismaaciil dulmi iskuma raacin macquul maaha 190 iyo dheeraad xildhibaan inay intay meel soo fariistaan dulmi isku raacin shakhsi ay dulmiyaan laaziman waxaa jiro sababtaas maanta ma aha meeshan inaan ka sheegay sababtaas madaday leedahay madashu waa baarlamaanka xildhibaanaduna markaa waxaad ogaanaysaan inaysan waxba ay galaal u dhiganayn aniga jawaari saaxiib aan lahay runtii waa uga laxa jecloonaya aad uga laxa jecloonaya in uu fagaarahaas intuu yimaado wax allaala waxa 190kaas dhaliisha ay qabaan ay meeshaas ka sheegaan wax qurxan ma noqon doonaan wax aad u foolxun oo dhibaato badan oo xildhibaanadu waa siyaasiyiin wax ma sheegaan laakiin fagaarahaas sheegida imaanayso aad u foolxumaan doontaa waa midda inta jawaari u dhow ee saaxiibka la ah ee la shaqaysa ee uga laxa jecloonaya oo ay la leeyihiin odaga alla la taliyo aan talinno odaga waa iska tanaasulo waxay ku fadhida male baarlamaan la guddoomiyo wax weyn ma waxaa ka fool xun in xildhibaan walba afkiisa intuu furto dhibka oo guriga la jifay oo halkaas ka helo anigu qodobkaas waa qabaa arrinta kale oon rabo inaan xildhibaanada uga digo oo runtii aniga qof ahaan muhiimkii ah waxaa weeye arrinta maantay jawaari dadka ag fadhiyo ee wax u sheego ee u sheegay inay cod u hayaan waa dadkii waddankan dumiye waay qaar ka mid aan la sheekaystay waxay yidhaahdeen wax guulaystay ilaa hadda annagaa ka jiro maxaa yeelay haddii jawaari la ridi waayo fawdo aan dhammaad lahayn oo lagu dhammaysto waktiga ayaa noo bilaabatay waa saan rabnay u fiirsaad qof baa wuxuu leeyahay waxaan rabaa in jawaari uu raayo maaha inuu asiga laxa jecloona ama shaqo fiican uu haayo wuxuu leeyahay waxaan rabaa jawaari inuu raayo si fawdo aan dhammaanaynin oo xukuumaddu noo shaqaynin oo cid noo shaqaysaysa jirin ee u dhacay xildhibaanna taas ka foojinaada dabinkaas yaan lagu dhicin 4 qof oo macal u baratay habeen dhaweed waxaa la yidhi teleconference ayaa lagu jiray magaalada Ankara iyo magaalada Muqdisho waxaa laga wada hadlaya waa garanaysin halka waxaa ka yeertay mushaar lama qaadan 9 bil 10 bil askartii cid walba laakiin bil ma baaqanin hadda horumarkaas aan gaarnay raga meel u fadhiyo rabaan inay yidhaahdaan jawaari oo isticmaaleen jawaari waxaa la gudboon inuu intaa naga hoos qaado oo uusan fursadda dahabiga ee hortaada uusan gefin nin oday oo sharaf la waayo inuusan intaas gefin ayaa hortaalo annagana waxaa noo taalo ragga meeshaas yacni soo hanqaltaagaya inaan runta u sheegno oo aan xaqiiqda isku sheegno 12 qof aa lagu tilmaamaa 12 qof inay waddankan hostage u haystaan oo hadda rabaan guddoomiyihii intay baarlamaanka u samaystaan in maanta oo dhan fawdo lagu jiro waa inaan ka waanto waa mahadsantihiin waa ka ku dhaw